أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الثناء لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. walaalyaal dhammaantiin salaamu ullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh. waxaan hawada idinka soo marinaynaa insha allahu tacaala bahda Happy Marriage Academy oo caalamka idinka soo salaamaysa insha allahu tacaala. sidaan horey idinku soo sheegnay TV-ga caalamiga Somali Cable ee xaruntiisa dhexe ay tahay magaalada London ayaan idinka soo tabinaynaa barnaamijkii aan aalaaba uga hadli jirnay horumarinta qoyska iyo wanaajinta reeraha. in aan horumarino qoyska ayaan isugu imanay. marka walaalyaal soo dhawaada, jazaakum allahu khayran. waa walaalkiin Axmed Jawhari Bilaal. sidaad ka warqabtiin barnaamijkan waxaan kusoo gudbinaynaa si joogto ah, si lamaano ah, si wadajir ah, aniga iyo macalimadeena Hiba Cumar Geele insha allahu tacaala. halkan ayaad nagala socon doontaan hadduu eeba idmo hameen kasta oo jimco ah idanka ilaahay. waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka aan ku kobcinayno, ku horumarinayno, ku wanaajinayno qoysaska Soomaaliyeed, qoysaska muslimiinta. qoys kaste oo caawa muuqayaga iyo maqalkayaguba u gaadhayo inay horumaraan, ay ku noolaadaan insha allahu tacaala nolol raaxa leh. walaalayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka aan ugu magac darnay insha allahu tacaala horumarinta qoyska. maalinkii hore waxaan tilmaanay ahayd in kobcinta qoyska uu yahay. waxaan aada uga cudur daaranaynaa una tahaniyadeynaynaa walaalo runtii aada u qiimo badan in ay hortayo barnaamijkaas website ay sameeyeen lana soo weydiiyaan ku baraarugnay kobcinta qoyska. marka ilaahay subxaana wa tacaala ajar iyo xasanada ka siiyo. horumarinta qoyska ayaan dhahaynaa insha allah. caawa waa life, hadduu eeba idmo waxaan idiin soo bandhigaynaa arrimo ku saabsan qoyska, aniga iyo walaashay Hiba Cumar insha allahu tacaala. waxaan aada u rajaynayaa inaad nagala soo qeyb qaadataan hawada oo aad noo soo gudbisaan wax alla wixii comment ah, wax alla wixii maaragtay talo ah, wixii tusaaleyn ah, wax alla waxaad u aragtaan inay u wanaagsan tahay qoyska sidii loo horumarin lahaa insha allahu tacaala. walaalayaal waxaan idin leeyahay salaamu ullahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh. soo dhawaada mar labaad. waxaan soo dhaweynayaa runtii oo aan rabaa in aan mikrofoonka u dhiibo macalimad Hiba Cumar Geele oo iyaduna ah co-founder hay-adda aan kusoo gudbino macluumaadka aan rabno inaan idinla wadaagno si guryaheenu ay u noqdaan guryo ku nool raaxo, farxad, isfahan, wanaag iyo horumar insha allahu tacaala. Hiba Cumar, falyatafadali mashkuura. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. waxaa idinka soo salaamaya Hon Cable waa walaashiin Hiba Cumar Geele insha Allah. barnaamijka Happy Marriage Academy weeyaan waxaa idin soo bandhigaya maanta oo jimco ah. habeen walbo jimco sidan oo kalena ay idin soo bandhigi doona barnaamijyo ku takhasusay insha Allah Somali Cable ku takhasusay guurka, horumarkiisa, isfahanka, lamaanaha, labada qof isla nool iyo mujtamaca siduu u hagaagi lahaa biidhnillaahi alkariim. marka qof walba oo danaynaya amba raba inuu ummadiisa ugu horeysa inuu wax ka bedelo waa inuu fiiriyaa guurka. labada qof isla nool amba xaaska amba reerka inuu fiiriyo. hal reer hadduu wax ka bedelo reerkaasaa boqolaal dhali doona. marka waxaa idinku soo dhaweynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba barnaamijka live aad uga daawanaysaan Somali Cable insha Allah. maalin walbo jimcaan aad ka daawan doontaan. وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa kelmadaadii runtii ee soo dhaweynta ah. walaalayaal waxaan isweydiinaynaa markaa insha allahu tacaala si aan u guda gallo barnaamijkeena. su-aasha u horeysa waxa weeyaan guurku runtii horta maxaa guur la yidhaahdaa?
marka aan guurka isweydiinaba waxaan isweydiinaynaa haddana ku darsanaynaa bal faa'iidada maxaa laga faa'iidayaa guurkaas hadduu eeba idmo insha allahu tacaala. inta badan waxaan isku dayayaa qaabkan in aan usoo bandhigno, in anigu aan idiin soo bandhigo, maclimad hibana ay inoo sharaxday, inoo macnayso haddii uu eeba idmo. waxaan kusoo gabagabeynaynaa markaas si laysaga taxadiro oo laysaga jiro guurka maxaa ka hor yimaada caqabaad, maxaa burburiya, maxaa cadow ku ah inaan idinla wadaagna insha allahu tacaala. waa marka u horeysa guur maxaa la yidhaahdaa hibo? guur maxaa la yidhaahdaa? wax badan baa la isweydiiyaa. waan iska dabcan qofku marka uu qaangaadho ee uu dareen soo galo ee uu jeclaado in uu maaragtay yani in uu helo cid kale oo kasoo horjeeda, ayaad moodaa mararka qaarkood sida generica iska caadiga inuu ku fikiro wada iska guurso. marka ahamiyadda guurku maxaad u malaynaysaa? ninku inuu gabadha ka raadinayo, gabadhuna ninka ka raadinayso, maxaas loo guursadaa? maxaad is leedahay? الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. runtii macnaha guurka haddaan wax yar oo hal kelmo aan kusoo koobo waxaan dhihi karaa waa ka tegitaan aad ka tegaysid noloshaadii keli ahaaneed ood keli aad ahayd, aada u guuraysid nolol adiga oo 2 noqday, oo 3 noqday, 4 noqday, sii biiray. marka kelinimadii baad ka baxdo, waxaad noqotay jamac baad noqotay, waad badatay. si aad u badan lahaydna wado kaloo loo mara male, guurka un baa loo maraa. marka guurka oo shareecadeena islaamka ay kuu jideynayso, ay ku barayso sidii loo ugu dhaqmi lahaa iyo sidii loogu noolaan lahaa baan ka wada hadli doonaa insha allah. wiilka iyo gabadha isguursanayna wax badan bay iskaga baahan yihiin. waxaad moodaa ilaahay xikmadiisa waasica ah in wax walbo wiilku u baahan yahay uu gabadha geliyay, ay gabadhu hayso wax walba ay gabadhu u baahan tahayna ay wiilka ka helayso. marka waa 2 qof oo isbuuxinaya, waxa isku yimiday oo nolol wanaagsan oo raaxo leh oo qabow oo degan raba in cimrigooga inta ugu hadha inay ku dhamaystirtaan. taasaan guur loo yaqaanaa. faa'iidooyinka iyo cadow maxaa ku ah iyo dhibaatooyinka iyo wadada adag ee la wada mari doonana waan ka hadli doonaa insha allah. khayr allah ku siiyo. sidaa tilmaantay, wiilku gabadha waxbuu ka dooranayaa, gabadhuna wiilka waxbay uga baahan tahay. exactly iskood yani waxaan runtii ka cudur daaranayaa inay dadka qaarkood sunna kawniya weyaan inuu ilaahay subxaana wa tacaala siduu bini aadankani usii tarmo in maxaan ku dhahdaa rabbi uu isku sameeyey 2dan qof. si kale haddaan u dhigno guurka waxaa la yidhaahdaa waxaad ka guuraysaa gurigaad deganayd, guri kale aad u guuraysaa. dhalinyarada markaad tahay gurigii waalidkaa, qaraabadii, tolkii, meeshaad ku dhex kortay ayaad ka guuraysaa, isbaad u baxaysaa. waxaad leedahay waxaan asaasayaa guri kale oo aan markaa anigu aan unko caa'ilo, family, qariyad bay noqon kartaa. marka waa maxay? waa sida inoo sheegtay maclimad hibo, adoo xaalad ka guuray ilaa xaalad kale. maya wakti baad ka soo baxday dhalinyaro ah, waxaad soo gashay wakti kale oo ka duwan oo aad noqotay dhalinyarnimadii ay kugu biirtay mas-uuliyad siyaado ah, xil dheeraada uu kugu biiray. saas daraadeed sunnadeena markaad eegto ood ku noqoto sunnada, waxaad arkay nebiga sal alla alay wasalam in uu kula dardaarmayo dhalinyarada runtii inay guursadaan. markay guursanayaan shuruud baa ku jirta meeshaasoo lagu xidhay oo la yidhaahdo baa-a. baa-ada waxaa loo macnayn jiray in ay tahay keliya masaariif iyo masruuf. culummada mucaasirka ilaahay ha xafido waxaa lagu daray oo lagu macneeyaa, way sii ballaadhataa baa-adaasi oo waxay noqotaa kuf-i inuu qofkani qofka kale qaadi karo, hadday dhaqaale noqoto, haddii ay maaragtay maamul iyo maarayn ay noqoto, haddii ay mas-uuliyaddii ay noqoto, haddii tarbiyadii ilmaha ay noqoto. ilmaha waxaa ka horeeya labadiina in aad maaragtay isfahantiin ood wada noolaantaan. 2dan qofi in ay isqaadi karaan baa markaa guurka ku dhex jirta. markaa walaalayaal waxaa la yidhahdaa marka guurku ibo waa contract, waa heshiis. waxaa naqaanaa runtii dhinaca waxaa ka baxaya mararka qaarkood, dabcan heshiiska unbay dhinac ka soo galaysaa.
laakiin waxaad moodaa mararka qaarkood in dadka la isku dhisayo ee la isku darayo in go-aankii iyagoo ay wada qaadan lahaayeen heshiiskii iyagoo wada gali lahaayeen in loo galo oo la isku daro hadhowna ay dhacdo mararka qaarkood dee anigu maba ku rabinba marka waa dhibaatooyinka jira yani guurka marka heshiis contract wiilka iyo gabadha way heshiinayaan waxay ku heshiinayaan arrimo dhowr ah dabcan waxaa ku jira markaa guurkii waa maxay waxaa ku jira jacayl waxa la yidhahda labadan qof haye hibo attraction mechanism ilaahay aayadda qur-aanka markuu leeyahy wajacala baynakum mawaddatan waraxma meeshaas maxaa ku dhex jira wiilka maxaa soo jiitay gabadha maxaa soo jiitay run waxaa weeyaan runtii oon rabaa inaan arrinkaad sheegaysa dib ugu yar noqdo oo ah diinteenna iyo qaabka dadka loogu macneynayo iyo culimmada say ugu sharaxayaan gabadha waxaad moodaa inaa wax badan looga baahan yahay wax badan oo aada u fara badan nacam mas-uuliyad laakiin wiilasha way yar tahay amba waa laga gaabiyey in sideedii loo tarbiyeeyo sideedana loogu sheego mas-uuliyadda sugaysa iyo culayska sugaya reerka uu ka qaadi doono marka waxa weeyaan dhinac baa loo dheeliyey dhinacunbaa maad aragtay loo dheeliyey marka in miisaanka la dheeli tiro ayaan rabnaa insha allah oy culimmaduna mar walba ay ka hadlaan oy sheegaan labada dhinacba welibana muhiimadda la saaro wiilasha guursanaya amba aabbayaasha oo hodhow aabbayaal noqon doona runtii waxa weeyaan labadan qof caalam bay usoo baxayaan nacam shalay kumay jirin caalamkaas kelibay iska ahaayeen noloshooday maamulanayeen wax ka maqnaa ma jirin laakiin maanta mas-uuliyad ciiddaa ka fara badan ayaa koraysa waxbaa ka ratimaya ilmaha meesha ku beermaya nolol dhanbay noqonayaan marka maadaamay nolol noqonayaan waa in loo diyaariyaa barnaamijkeenana waxa weeyaan wuxuu u istaagay in diyaarista la diyaarinayo ummadda oo loo diyaarinayo mujtamaca inay dad wanaagsan kusoo zaa-idiyaan reero wanaagsanna ay noqdaan weeyaan waxaan ka shaqaynayno shaqada aan rabno inaan qabano waa taas culimmada inta ka shaqaysana ilaa khayr iyo ajar iyo xasanada ka siiyo maad aragtay waxaanan rabnaa in mujtamaciina soomaaliyeed aada looga dhiso dhinacaas marka maadaama aada leedahay labadii qof markay contractiga iyo heshiiskaas ay galayaan keligood looma daynayo amba looma daayo wax badan baa ka ratimaya dhibaatoo dhan baa ka ratimaysa marka ma waxaa kuu roon in aada soo faragashato labadii qof oo maad aragtay ay hodhow toolan dhibaata ay ka dhacdo uu qof walba qofka kala eedeeyo mise waxaa kuu roon inaad diyaarisid ood waxbartid uu labadan qof heer waxay gaadheen ikhtiyaarkooga ay sameeyaane ay ku dhaqaaqaan oo joyce wanaagsan iyo khiyaar wanaagsan ay sameeyaan hodhow toolana ay dhabarka u dhigan karaan mas-uuliyadda ka ratimaysa iyo maad aragtay wax walba labadaas in la kala doorto marka qofka aqliga saliimka xambaarsan wuxuu dooranayaa in la diyaariyo dadkan sida noloshoodaba loogu diyaariyay sida waxbarashadoodaba loogu dadaalay sida maad aragtay shaqadoodaba loogu dadaalay qofkan advice iyo talo iyo waxaas kugu leeyahay kuguma lihin wax kale marka insha Allah dhinacaas hiba khayr Allah ku siiyo meeshaas baan rabaa inaan isdul taagan runtii aad tilmaantay walaalahana fiirsanaya waxaan rabaa inaan la wadaago waalidku intuu ka walwalaa ilmaha in uu diyaariyo oo uu u diyaariyo sidaad sheegtay mustaqbalkiisa hadday dugsi quraan tahay diintiisa wuu kula dadaalaa ilaahay khayr idin siiyo haddii ay tahay mustaqbal waxbarasho iyo aqoon uu kula dadaalayo iskool iyo jaamacad iyo wax kasta maartay kharash iyo xoog iyo la geliyaa waqti aad u tiro badan waxaan isweydiinayaa aad baan u jeclaan lahaa markaadna soo wacaysaan haddii alla yidhaahdo inaad nala wadaagtaan khibraddiina intee in la eg baan u diyaarinaa runtii mase jirtaaba horta ma loo diyaariyaa qofkani nolosha labaad ee uu gali doono mise ajandaha inooguma jirto waa su-aalaan raba runtii in bulshaweynta Soomaaliyeed meel kasta caalamka joogaan in aan u diro oo weydiiyo waata hadda aad ka dhawaajisay ah qofka waa loo diyaariyaa in uu career sameeyo inuu nolol fiican sameeyo waxaan oo dhan wuxuu u baranayo waxa inay noloshiisa mustaqbaleed ay wanaagsanaato fiicnaato okay noloshiisa mustaqbaleed waxa ku jira gabadhu guursan lahaa wiilku gabadhu guursan lahaa gabadha wiilkii guursan lahaa sidee la isugu diyaarinayaa barnaamijyadan aan runtii aan ka hadalno aan soo bandhigno koorsooyin online oo aan sameeyno ayaa jirta runtii
arrimahaasaan maaragtay aan ku niqaashina oo aan ku diyaarina oo aan ku soo bandhigna waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala mustaqbalka in la gaadho darajo si loo yareeyo furiinkii iyo dhibta kala taga iyo isku dhaca iyo qoys baa kala laalaadada oo lagu hayo si loo yareeyo waa in la helo runtii diraaso wiilka iyo gabadhu in ay bartaan oy fahmaan qaabkay u wada noolaan lahaayeen. waasaas axmed waxaan ku darin lahaa anigu nacam guurku sidiisaba waa gaashaan nacam gaashaan aad u baahan tahay weeye waa faa'iidooyinkii markaa guurka waasaas maxaan ka faa'iidaya haddaan guursado maadaama gaashaan leh waxaa la rabaa in haddii waxaan ahmiyad weyn Nacam. uu ku leeyahay Nacam. uu muhiim ku yahay oo culayska uu leeyahay aad dareensan tahay waad daryeelaysaa waad ilaalinaysaa Nacam. waad daba taagnaan kuma halaynaysid qof kale kuma halaynaysid nacam marka guurku walaalayaal waxa weeyaan waa gaashaankaaga weeyaan muxuu gaashaankaaga yahay soo wax la isweydiiyey soo ma nacam xumaanoo dhan buu horta gaashaankaaga yahay lianna darajo waxaad soo gaadhay aad haddeed aanad u baahnayn raashinkii hooyadaa iyo aabbaha ku siinayeen dharkay kuu gadayeen iskuulkay ku geynayeen waa ka weynaad nacam baahi kale ayaa kugu soo zaa'iday Nacam. baahidaa kalena hooyadaa kuuma buuxin karto aabbaha kuuma buuxin karto mujtamaca cid kaloo kuu buuxin karta ma jirto ilaa qofkan lamaanaha aad la noqonaysid mooyaane nacam marka maadaamaa la buuxinaya baahidaada adigana meesha waxaa ku lamaan oo ku jirta adiguna baahidiisaad qofka qofka kale aad buuxinaysaa. Ha. Nacam. maadaamaad baahidiisa qofka kale aad buuxinaysid waxay noqonaysaa in la baro ma garatay faaxishoo dhan buu yuu gaashaan uga yahay Nacam. mujtamaca ku badbaadaya Nacam. mujtamacu zinadu ku badatay waa la arkay dhibaatada ay keentay wuxuu ku barayaa in naftaada aad tarbiyeysid eeg shalay markaad keli ahayd goortaad doontaad seexanaysay goortaad doontaad soo toosaysay goortaad doontaad wax cunaysay sidaad doontaad wax cunaysay ya waxaad haysato xorriyad mudlaq ah amba u dhow baad haysatay intii waalidku uu maaragtay uu ku darsado uun mooyaane Waaw. marka tani waxay noqonaysaa in xisaabtaa ku darsatid goortaad doontay ma seexan kartid sidaad doontay wax uma cuni kartid meeshaad doontay ma mari kartid sidaad doontay uma hadli kartid ya dhaqankaagii iyo sulugaagii iyo socodkaagii iyo qaab nololeedkaagii oo dhan baa isbedelayaan so isbedel weyn maaha waxaas Nacam. waa change aad u weyn. major change way ta kale wuxuu badbaado u yahay ummadda Nacam. mujtamaca islaamku guur buu ku badbaadayaa guur ayuu ku badbaadayaa guurkan dee lagu dheelay ma ka hadlayno waana laakiin guurkii institutionkii ugu qiimaha iyo dambeeyay. culayska lahaa baa lagu badbaadayaa walaalayaal maxaa dhacaya in uu qofku iimaankiisa uu ziyaado nacam oo saxiix maaragtay nisful iimaan baa kuu kaamil yeermaya markaad guursatid Saxiix. naftaada xataa caafimaadkaaga yaa la ilaawin Nacam. ya Nacam. waxani way qoto dheer tahay oo aad bay diip ay u tahay marka waa ilaa xididada in la socdo oo la barto ayaan diyaarunahay axmedow intii awoodeyna ah inaan mujtamaca uga Nacam. gudbino ma isleedihiin walaalaha ma isleeyihiin meelaha ay dhici karto in maalan khilaafaadka uu ka yimid arrimaha hadda ay macalin hiba ay tilmaamayso oo ah maalan xorriyadaadii inaad qayb dhanaad ka hadhay ha shalay sidaan doonaan go-aan u qaadanayay laakiin maanta go-aanka keligee ma qaadan karo waa inaan go-aankii la sheergareeyo mise dee anigaa maaragtay mas-uul ah anigaa maalan marka nin la yahay oo kale anigaa nin ah anigaa mas-uul ah aniga waxaan doona waa inaan sameeyo aniga waa in la iga dambeeyo aniga waa in maxaan ku idhaahdaa la dhegaysto hadal la iga daba keenin waxaa idiin sheegayaa runtii oo u baahan in aan baranno qofku sida uu usoo koro ee loo soo koriyo waxay door weyn ay ka qaadataa ama raad weyn ay ku leedahay go-aankiisa ama go-aamada uu qaato ee uu sameynayo noloshiisa marka uu weynaado waxaa raad weyn ku leh meeshii uu ka yimiday backgroundkiisii historygiisii pastigiisii raad weyn ayay ku leedahay sidii loola dhaqmayay isaga psychologically markaad fiiriso gabadhu maalan waxay raadisaa aabbaheed haddii uu fiicnaa oo aabba naxariis badan oo wanaagsan oo hadal dabacsan oo naxariis laku hadla u ahaa nin u eg aabaheed ayay raadisaa wiilkuna sida oo kale hooyadii hadday ahayd hooyo naxariis badan aabbihii maaragtay u dabacsan gabadh hooyadii oo kale ayuu raadiyaa saas daraaddeed waxaad arki mararka qaarkood markay walaaluhu ku soo wacaan khaasatan dadka is haysta inta badan weli waxaan ku talin lahaa walaalayaal khayr allah idin siiyo marka barwaaqada lagu jiro ha laga fikiro barwaaqada sidee loo daa'imiyaa kama fikirno
inta badan dhalinyaradu waxay yiraahdeen ama dadka dhawaanta guursaday waxay yiraahdeen maxaan uga baahanahay baan isjecel lahaybe wax tali iyo wax inkaas ugama baahnin okay barwaaqada abaar baa ka dambaysa jacaylkan waxa ka dambeeya daal wala daali hadhowta waxa imanay ka yaana ima ajabin kaama helin way iga dhamaatay khalaas ahamiyadii dhaneed u guursatayna way iga dhamaatay ma aha way ka balaaran tahay runtii marka shalay go'aankaad qaadanaysid maanta ma qaadanaysid waa ina miiska aad soo saartay go'aankii macnaheedu kama dhigna mesela raggu hadii ay qawaamin ay yihiin in qawaamadii lagu diiday oo qaadanaysid maya mas'uul buu ilaahay reerkaaga dhigay reerkana la rabaa in aad si aqli iyo xikmad aad ku wadid ilaaha abuuray subhanahu wa ta'ala mesela daliil hadaan soo qaadano rabbiga kownka abuuray adiga ku abuuray ilaahay markuu aadam abuuray wax cusub ba caalamka universe ku soo ziyaadayso ma aha iyo la tashaday يعني waa laga yaabaa in dadka qaarkood ay yiraahdaan subhanallah waa sax waa subhanallah tashi oo uu leeyahay ma sameyn kara mise ma sameyn kara maaha laakiin qaab kamida ayaa jira tashiga oo ah u sheeg ka wargeli ogeysi ogow aragtidooda وإذ قال ربك في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أفيرس ملائكة أشيرية معصومين تهي إلهي سبحانه وتعالى وحالي لذا ماملكا أيها لغلا صعبها هلكا أو ذاتك مانجمنتك كو تخصصي علمي وحي كلا صعبحين sharing information إن أي مهم تهي أو هداد leader تهي مسؤول هداد تهي إن أراد إسكا قادم قوانك كليكا وحماشا سكجرتا ملائكتا إلهي سبحانه وتعالى وحي أشيغين أركتدودي قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء واليوم حي لهن ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ملائكتي maxay sheegtay aragtidoodii bay sheegeen culimadu waxay isweydiiyaan yaa u sheegay in dhiig daadan doono in bil aadanku dhulka qasi doono yaa u sheegay waxa la yiraahdaa mufassiriintu aadam hortii ilaahay jinbu abuuray jinkii bay arkeen oo islaayay oo isdilay oo isbaabi'iyay halka bay ka tusaale qaateen laakiin maxallu shaahidkeena meesha aan rabo iyo inaan tilmaamo wax weeyaan ilaahay wuxuu weydiiyay makhluuqaadkiisii aragtidoodii inaga waxa la inaga rabaa oo bil aadan oo kala aragti duwan inaan isweydiino aragtida inaan isku dhibrino inaan isu naxariisano inaan isku dabcino waxaan marka meeshaas waxa ku jira cilmi badan oo ah mar hadaad guursatay mar hadaad mas'uul tahay mar hadaad guri walidaalك nabiga kaleey salaam waa kale كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته ninka soo galay haweeneyduna way soo galaysaa qof kasta mas'uul buu ka yahay qaybtiisa waxaan laga rabaa qaybtiisa inuu la sheer garayo qofka kale inay kaligi ku ekaato ma aha waxyaabaha keena marka mushkilaadka maadaama waqtiga uu caawa muqaddima ahayd insha Allah ta'ala waxyaabo badan baan ka hadli doonaa oo guurka ka ratima iyo noloshu sida isku bedelayso maxaa la yiraahdaa guurku noloshaadu bedelaawaatii noo sheegaysa macluumaad hibo markay noloshaadu wax ka bedelanto waxba kugu soo siyaaday sideed ula tacaali qodobo badan ayaan haduu la yiraahdo aan ka hadli doonaa mesela finance ka kamida maya mentality-ga fikradda aan ka haysano concept-ga dhan ee guurka ma iska guurso uuna ilma iska dhalo waxa doontii iska sameeyba mise waa xil dhan mise waa art dhan mise waa farsamo dhan mise waa maaragtay cilmi dhan oo u baahan in aan helno waxaan u soo gudbaynaa qaybtii ugu dambeysay oo ah إن شاء الله تعالى تلفون ما نسوق قالوا قبلنا قيبتي قدام بيسيو هديو إيه إدمو محا عدو كو محا بربورين كرا مرة ما ينكرنا إيه يربان كتابنا إن شاء الله تعالى كسو دويو ما شاء الله أحمد وإنت أنا محا عدو كو أنا كهدل وحان سو حسوستي وحان سو حسوستي وحيالا بدن بان أو وناكسن وأصل كي وناكسنا باخربني هدان سومالي نهي كما هالله أنا مركان لي هدان سومالي نهي Soomaali baan ka hadlaynaa because Soomaali baan la hadlaynaa markii kala halka naga dhig marka Soomaali hadaan wax badan baan kharibnay wax badan ayaan daba gedinay waxa kamid ah Ilaahay Aadam buu abuuray alayhi salaam nabi Aadam markii la abuuray abuna Aadam markii la abuuray Ilaahay wehel buu la doonay ya kelinimadi buu diiday marka qof walba wehel buu u baahan yahay horta taas ya markuu wehel Ilaahay la doonay Xaawa ayuu abuuray حاول لك سيدي لو أبوري حلكي لغا أبوري سيدي لو أبوري حلكينا لغا أبوري وين ليس ويديا
لأن وحن ولا مقلان ولا جد بالك إن الله في رصد عيال الربع حاوى وحا إلهي كأبوري فيرها ميدك بدح لك يلا أو ونها إلالية قلبي جاجا فيرد كرسارن أيا فيردي آدم كرسارن بحاول لك أبوري مركي حاوى إلهي وأبوري آدم قيب السجا كمية النقطية إج نعم لجمع كين قارد كله لجمع كين سيدي سوكل إنت الله أبوري ما يسور جوكسنو السجا قيب كمية النقطية مركا واسكو جنس واسكو مد واسكو DNA وحول بواس نعم. مد نعم. هل قف بيسكويهن لأن قيب أدي لجا سوق يوم هاي تاي أدي قوم بيكامل تاي مركا محاد عين ومن آياته دي ها أن خلق لكم من أنفسكم آدم أزواجا. إلهي نعم حوجا ولا يرمي دبالي سدو حنونك ودريمي فعدا نعم wuxuu arkay xaawo oo qurux badan oo wanaagsan oo horjoogta عجيب uu ku farxay uu jeclaystay ya ina waa makhluuq ka duwan isagiina ka timiday ya marka wehel bay u noqotay نعم maxaa la yiri Soomaali maxay u bedeleen dumarka feer qalloocda laga abuuray marka waad garan kartaa feer qalloocda waaba qof maroor oo qalloocayadaaba qalloocda qof tani ma garatay nacam maxaa ku hoos jira khayr badan iyo ijaabo badan ma lihin laakiin waa khalad waa qayb kaamid ah oo awood Ilaahay siiyay iyo maskaxda iyo gargaarka Ilaahay ku galiyay la qiyaasi karin wallahi lama qiyaasi karo lafti feed ee qalloocda nabiga xadiiska uu ku sheegay ha ba meaninkeedii laga leexiyay la fasaadiyay waa la fasaadiyay نعم. ma garatay نعم. marka in la ilaaliyo Dilci oo waxay aawjti ahayd yani. ha in la ilaaliyo oo waxay ahayd la raaco ee qalloocaas loo raaco ayay ahayd La oo fahmo wanaag ka yani. dhasho La oo la fahmo. fahmo inuu ka duwan tahay laakiin ma ahayn inaad qasab ku toosisid ma ahayn nabi waa noo sheegay عليه hadaad isku السلام. daysid inaad toosisid waa عليه janno السلام. ha إلى حديثكنا نبينا صلى الله عليه وسلم وسلم هذا تلاهي وان توسني oo de loo feedha qalloocday way jabi ويجبيسا ha marka in hadaan soo noqono insha Allah maxaa baabi'iyo guurka waxa baabi'iyo telefoon ku jira ma sha insha Allah Allah soo dhawo walaal السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كسو dhawo walaalkay magacaaga meeshaad ka hadlayso waan jeclaan lahayn inaad noo sheegto insha Allah عبد السلام محمود أنا معي. عبد السلام soo dhawo walaalkay khayr Allah ku siiyo شيخ ما مضى صلاة الله في الجواب بمسلامية. ilaahay ku salaam Allah yسلمك بارك برنامج شو عن هذا الإسلام بالأولى أساس كهدف الدواسين يجت وضعنا خير الله كسي إنسان حسنات من الهداية والقدرة. ilaahu amiin dhamaanteena khayr Allah ku siiyo هذا المكان برنامج شاش وحويان وأنا لها أنتي مشروع لغا فكرة ما عرفت واحدة من المكرة هذه برنامج كان تشوفيه مثل وضع ضد من ضا معناها حويان تفعل إنسان كرة أنا من بعام تشوف مع صوماليا اللي قال حويان أنا وقتي قبل نوت تطبق إني أساسا حويان وأنا برنامج كان شوية الترينية تعوضان مقرب صح weey صح weey marka aniga kulay su-aashaydu waxay tahay dad badan Soomaaliya ku dagaalka Soomaaliya dhacay ee la kala qaxay qolada meel bay aadeen dad baa chance u helay meelo maartay ama dhaqaalo ama maartay noloshiisu wacan tahay oo nabadgelyo iyo horumar iyo wax badan Ilaahay siiyey dadna waxa laga yaabaa dalkii isku joogaan waxay sii jiraan dagaalo waxa laga yaabaa ilmaha dhashay xilliga waxa laga yaabaa in jir yahay ama saddex yahay ولين يسوي دولة يدنا نوع عاسى أي كتير lack of knowledge أما أقوم ترى لغون يبقى هيسته ودولة يمام السيستم أنا كمران ودولة كحول جمر المالية عيان صح weey غالبا أنا بشري يا عروض أي سكر ريان سومالي نظن في تاسع وطبعا خي يعني وحبرش أنا بشري وهكا وحبرش دولة دوات كلمة إن ما أعرف وحبرا مثلا حشوده oo la wada shaqeeyo oo maartay wax badan saxmaan qofku wuxuu u haystay markii hore maartay sax marka dambe uu arkay inay khalad tahay oo uu joojiyo taasi marka waxay keenaysaa marka badanka waxaan fili karaa in Soomaalidu arrimahaas ay jirto oo isku dhac inay keento yani ay qaadanayso time waqti ay badan ay qaadanayso صح weey marka taasi way jirtantii aqoon daradaasi oo xagga weliba diinta Soomaalidu waxaa moodaa diinta inaanay aad iyo aad yani ugu wanaagsaneyn arrimaha kale ee aqoomaha kale ee maaragtay
maadiga aanay ku fiicnayn arrimaha dagaalku inuu iska jiro runtii barnaamijkaasi markaa wuxuu u baahan yahay in macnaha waxa weeyaan aada loo ballaariyo extension lagu sameeyo aada iyo aada loo ballaariyo oo la cusbeeyo dad badan oo maaragtay macnaha waxa weeyaan ninka laftigiina kala shaqeeyana anigu tala ahaan waxaan ku maaragtay in la kordhiyo intaasaan maaragtay anigu aan oran lahaa aada iyo aad baan idinku mahadnaqayaa maaragtay barnaamijka wacan ee socda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك ولالكي عبد السلام آد بان كاغا مهد علينا تلوينك آد كو قروح بدن لرنتي وصح إن لغو درسدو قرشها oo dabcan jaaliyada Soomaaliyeed caalamkay ku faafeen gaar ahaan arinta tilmaantayna waa arin muhiim ah runtii qaybayna ka qaadanaysaa haday burbur tahay iyo haday horumar tahay waanan ku darsanayna insha Allah hoostan ka xariiqay jazakallahu khayr walaalkay telefoonka xiga walaal meesha naga soo wacaysay magacaaga adoo mahadsan horta waa in mahad marka horeysa dhamaantiin waxaan idinka soo wacayaa magaalada Muqdisho magaciiduna waa Axmed Xasan Siyaad soo dhaw walaalkay gudagalo horta runaantii guurku waxa waaye waa xafidaad labada qof ba xafidaya anigu waxaan qabaa haddii dhowrkan qodob la iska ilaaliyo in maaragtay fureen iyo dhibaato iyo aamin darro iyo wareer unta iimaanin baan aaminsanahay qodobka ugu horeeyo marka uu horeysa hadii la is-aaminsan labada qofood is-aaminsan yihiin waxaan qabaa in aysan dhibaato badan imaaneyn sidoo kale qof walba iyo qof kale xaquuqdeeda ilaaliso in ay iyadana sidaas oo kale aysan dhib imaaneynin haddii guurku markuu dhaco qof walba markay qof kale oo isguursadaan labada qofood ay isguursadaan ay ogaato qof walba in ay mas-uul tahay oo hooyaduna mas-uul tahay aabbuhuna mas-uul yahay haddii uu ogaado inaysan dhibaato iyadan sidaas oo kale dhacayn sida haddii shaydaan qaado in la isu dul qaato oo la isu naxariiso oo samir la muujiyo ayaan maaragtay anigu kula tali lahay lamaanayaasha isqabo aad iyo aad waxaan aaminsanahay haddii arrimahaas laga shaqeeyo in aan wax dhibaato imaaneyn idanka ilaahay adinkana waxaan inkula tali lahay oon jeclaa lahay oon aad iyo aad u jeclaa lahayn inaad barnaamijkan aada noo wadaan oo si dad badan iyo ummad badan ay u gaarto oo muslimiina ilaahay adinkana ajir ha inga siiyo insha Allah amiin aad baan kaaga mahad celinayaa walaalkay Axmed oo naga soo wacay Muqdisho khayr Allah ku siiyo runtii assalaamu calaykum walaal meeshaad naga soo wacday iyo magacaaga khayr Allah ku siiyo calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan iga soo wacayaa degmada gobolka Burco waan gartay ku soco Burco magacaaga akhi magacaygana waxa la yiraahdaa Sugeer Khaliil Jaamac suge waan gartay sugow khayr Allah ku siiyo khayr sug Subayr waan gartay raali noqo sheekh iyo macluumaadka labadaba aad baan islaamaya ilaahay ku salaama Subayrow raali noqo waad mahadsantahay walaalkay TV-ga iska gaabi Subayrow insha Allah TV-ga iska gaabi waaya laakiin waxaan kala ku darsan lahaa waxa guurka loo yaqaan Soomaalida dhaqan bay ka haysatay diinta dhaqan bay ku sheegtay raggan dadka reer galbeedka dhaqan gooniye ku sheegaan waaya كل دكتور عامل واحد سريع واحد كل حوار صدق هذا كان قالوا إنه جاي من أنا يبقى كان جنسنا مع وأنا خنام رئيس نعم يبقى كأنه رئيس شرينكا هاي دائما كجو جالس كلا عياري ولا ولد كذي هو يا أبوه يا عمر فيستان هذين كستاركا يا كأني ميجا واقرت وادكتي أولف كلورنته واقرت زين واحد لقيه ورثني كور يرانا واحد شعلان لها إنه فاهيو waalidiinta sida waalidiinta waliba inay caruurtooda yar ku tarbiyadeen diinta islaamka sax weey waayo sheekh wax kelmadda wax aad i raadisay aad tiri qofku wuxuu dhaqanka uu ka arko waalidkiisa nacam ayuu hadda gurigiisa la tagaa waa sidaas aad baad mahadsan tahay waan idin duceynayaa waan islaamaya assalaamu calaykum
إلهي أكو سلامه جزاك الله خيرا سبير وأرين مهمة رنتي جوركو إن طبعا لقنا قيب وكلي هاي ود نينك هندية جوجا قاب وجور سدا نينك تشاينا جوجا قاب وجور سدا إنه مسلمين وصومالي جوجنا قاب وجور سدا دان قلبت جوجنا دي تاني بقى إن لا صعطة والصحوية إن لو قدر رنتي أو والد كدا دير مركز قاركود أن جاني سهلين رقمنا كلا دوان أما ما قلبت كجوجا إن وكوا كلنا أجادو وتلاقوا في عون الكيو أن كاجم هذا علينا جزاك الله خيرا تلفون هلو السلام عليكم ورحمة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما عاجي ماشي أنا قصوا وعيش خير الله كشي تي في كناس كجاب وحن كاسو وعيا خضر هلكي هلو هلو ها واكو مقلا هلو ولا الخضر بنكاسو وعيا قدر واي هاي قدر ما عاجا نقدر خير الله كشيه مقعيga waxaa la yiraahdaa Ibrahim Siyax Ahmed إبراهيم خير الله كسي عاو برنامج كجور كم حد كدريسا رومارين تقويسك ولا الواد ما تنتين بقلا فريتون القرآن كان يكون سلامة هياك إلهي السلام كل برنامج خير بدن بالودان وأدو في عن واصح برنامج خير بدن وأدو في عن بالودان وانقرت إبراهيم وحويان هرتا خير الله ينسيه لكن ما قرنا شيء دمرك ممكن ما تسخبه وحي كل دباتوين كبرن كيف كبلودان وانقرتي marka hadii ma garanaysaa ninkii isagoo dadaalahaya oo gabadhi ka dadaalahaya oo u dhiman haya oo ka dadaalahaya ma garanaysaa yay lugaha isku maran waa gart marka hadii bal dhibaatada ka waran iyada dhibka wuxuu ka bilowdaa moogtahay chiefku ka bilaabanaya dhibka ugu badan muxuu yeelay dhanikaas hadii muxuu yeelay muxuu sameeyay burin buu la dhici bugtu ka gelin waan gartay Ibrahim oo khayr Allah ku siiyo waxaan waa sax weey waxyaabaha runtii aan barnaamijkan in looga hadlo lagu baraarujiyo dadka ayay kamid tahay waan ka hadli doonaa hadduu alla yiraahdo arrinta jiifka de farxadna way ka jirtaa farxad la'aanna way ka jirtaa oo ma inkiri karno laakiin insha Allah waan ku soo qaadanaynaa casharadeena waana tilmaami doonaa aad baad u mahadsan tahay waxaan dib ugu noqonayaa insha Allah tacaala walaaluhu say hore u tilmaameen aad baan kaaga mahad celinaya Ibrahim runtii guurka waa xifdin say macallimadii bay noo sheegtay labada qof ba ilaalinaya oo ay ku dhowrsoonaanayaan oo nabiguna ina baray sallallahu alayhi wasallam waa wax ilaahayna inoogu talagalay inaan ku noolaano nolosha qaybo kala duwan ayuu taabanaya oo runtii bulshadana qayb weyn ka ah bulshada qoyskoodu degan yahay xasiloon yahay xoogan yahay fiican yahay bulshadaasi waa bulsho xoog badan baa la yiraahdaa oo horumarkana ku fiican baa la yiraahdaa runtii marka aad fiirido waxyaabaha dadka wax baadha ay ka qoraan society-yada bulshooyinka jira arrintaas ay ku tilmaamaan nin runtii arrinta wax ka qoray oo aad u kritisaaraynayay ama u naqdinaya aan idhaahdo bulshooyinka reer galbeedka mararka qaarkood wuxuu tilmaamayaa cabsi weyn inay ka jirto horumarka iyo ilbaxnimada reer galbeed in ay burbur ku dambeyn doonto wuxuuna ka bilaabay qoyska haddii sida hadda uu ku socdo qoyskaasi uu ku sii socdo waxa u dambeyn doonta in ay fashilanto oo ilbaxnimo kale ay soo baxdo oo markaa ka xoogan tan reer galbeedka ninkaasi wuxuu ka walwalayaa ilbaxnimadaasi inayna burburin in haymanada ama hegemoniga maxaan ku dhahday caalamka civilizationkani uu haysto in aynan saaxada ka bixin hawada ka bixin inay sii jirto wuxuu ka walwalayaa markaa qoyskii inaga uga awleysan oo muslimiin ah markaa in aan ka walwalo jiritaanka qoyska iyo sidii aan u sii xoojin lahayn sidaas daraadeed ayaan runtii isku niri waa in la helo dad u kaca
oo u quma arrintan in ay jaaliyadda u fuliyaan. aniga iyo maaragtay xabiibtii Hiba Cumar waan isfiirinay waxaan nidhi dhinaceed ka gali kartaan ummadan oo wax uga tari kartaan. hal arrin baa idinla wadaagaya insha allahu tacaala. nin baa maalinaan seminaar aan tagnay, walaal kastoo i fiirsanaya iyo walaasha kasta i dhegaysanaysa, arrintaas waxaan rabaa in hoosta laga xariiqo. nabigeena calayhi salaatu wasalaam islaamkeena iyo diinkeenna, diinku wuxuu u baahan yahay walaalayaal, oo maaha theory, wuxuu u baahan yahay ku dhaqan, practic buu u baahan yahay, inaan dabaqno u baahan yahay, inaan ku noolaano u baahan yahay, inaan ku faano keliya ma aha, inaan ilaalinana ma aha. inta badan waxaad moodaa inay inaga tahay ilaalo oo aan ilaalino. ninkaasi wuxuuna weydiiyey seminaaran aniga Hiba isku raacnay bay ahayd oo tababar ayuu ahaa. wuxuu yidhi qof kastoo 10 second ama 1 minute waxaad ka fikirtaa haddaad caawa dhimato indhaha isku qabato maxaa lagu aay, maxaa lagaa faa'iidi, ummadda kaa hadhay ee aad ka tagtay maxay kaa faa'iidayaan. wuxuu yidhi Hiba markaa waxaa dhacday Madiina qiso cajiiba ka dhacday. nabiga calayhi salaam intuuna dhiman wuxuu yidhi waxaa iga daba iman doona qisadii aad ila wadaagi jirtay. waxaa iga daba iman doona qof gacmo dhaadheer, markaan anigu dhinteen adduunyada ka tago qof gacmo dhaadheer baa iga daba iman doona yidhi nabiga calayhi salaam. ahli beydkiisa ha dee niba meel buu u kacay, gacmahan dhaadheer uu tilmaamay waa metaphoric, yani waa sarbeeb. ninba meel buu la aaday, ma qof gacmo dhaadheer oo qof kasta wuu isfiiriyey mogta, war qofkan gacmaha dheer lu nabigu sheegaya ka daba tagi doona waa kee. hadhowtaa waxaa dhimatay Safiya radia allahu canha. markaasaa waxaa soo baxay fuqaradii Madiina ayaa soo baxday. Safiya maxay samayn jirtay? waxay dabooshay baahidii fuqarada Madiina. eg dhimashadeedii maxaa la tabay? waxaa la tabay meeshii ay kaga jirtay labinadii ay buuxinaysay, albaabkii ay dabooshay ayaa maanta furmay oo islaam muslimiinta ku furmay. waxaa isweydiinla markaa runtii aan isweydiinayaa adiga walaalkayga i fiirsanaya ee ninka ah ee caalamka maanta meel kasta ka jooga, maxaad caalamka uga tegi? gurigaagase siduu yahay? soo dhawo walaal, magacaagii meeshaad naga soo wacday khayr allah ku siiyo. walaal waan ku maqlaynaa, telefoonka iska gaabi, tv-ga iska gaabi, telefoonka igala soco insha allah. asalaamu calaykum. calaykum asalaam waraxmat ullahi barakaatu. waa idin salaamayaa dhammaantiin. allah ku salaamo walaalkay. magacayga waxaa la yidhaahdaa cali abshir maxamuud. cali abshir, soo dhawo walaalkay. inteed naga soo wacaysaa? waxaan idinka soo wacayaa Kenya. ilaahay kugu xafido Kenya. horta reeso walaal, khayr allah idin siiyo. qof walba guriga markii la dhisaayo ama ninkii naagtu nolosha wadaagayaan, waxaa jira horta reeso guriga in lagu dhiso alka cabsi iyo is-xushmeyn iyo isqadarin. nacam. midda xigto waxaa muhiim u ah nolosha inay ku dhisan tahay is-aamin iyo run in laisku sheego. waa sax wey. qof walbana kolley dumarka ayaa la iska eedeeyaa, laakiin rag naftirkoodu ayaga xataa cilad bay leeyihiin, dumarkana cilad bay leeyihiin. nacam. ciladaha laakiin waxa waaye qof walba qofka kale inuu u sabraa. nacam. midda ugu horeysan uu ka go-ay cali, walaalkay aad baan kaaga mahad celinaya cali, oo khayr allah ku siiyo. arrintaa tilmaaday waa arrin muhiima, waanan insha allahu tacaala waan kusoo noqon doonaa. walaalka xigay insha allah. asalaamu calaykum raxmatullah. calaykum asalaam. walaalkay magacaagii meeshaad naga soo wacday allah ku xafido. walaal waa axmed warsamo la yihahda, waxaan kaa soo wacaya ingiriiska. axmed warsamo, soo dhawo akhi. waa idin salaamay. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. salaamta islaamka. ilaahay ku salaamo akhi. ilaahay ha idin barakeeyo labadiinaba, ilaahay ha idin barakeeyo. inta kale muslimiinta wanaag baa wadaan, ilaah amiin dhammaantiin. waxaan bulshada looga baran hadda ka hor baad soo bandhigteen.
run ahaantii aada buu faayin kastoo barnaamijku aada iiga horeeyey markii hore laakiin barnaamijyo hore oo aad qaban jirtay ayaan ka raacahaya maasha allah oo aada u wanaagsanaa ilaahay khayr badan ha idin siiyo ilaahu amiin jazaka allahu khayran baan idin leeyahay ilaahay maaragtay kuwii ka guul gaara ilaahay ha idinka dhigo waan ugu ducaynaya ilaahu amiin waxaanan aada u jeclahay barnaamijkan haddii aad sii wadaysaan ood meeshaa soo fadhiisanaysaan anna ruuxayadu inaan xataa garab idin siino idinku soo buuxino meesha oo laba qof kaliya inaan noqono dad badan oo aada u fara badan oo bulshahoo isku xirno allahu akbar oan idin imaano idinkala shaqeyno idina fadhiisano idin wixii aan anaguna fakarkeeda maskaxdeeda ku jirto aan ku darsano saas u jeclaan lahay inaad tiim badan oo adag oo maarata isku xiran meesha laga helo aasaaskiisana ilaahay ha idinku guulayaan leeyahay marka wax kale idina soo wixin meeshaana dulmigaa ka jira waddanka iyagii iyo waddankaan isku mid maaha hadda nin baa halayo lahaa haddii gabadha kusugaadida waa la garaaca meeshan garaac iyo dil iyo xoog midna ma yaalo dadkana waa dad islaam diinta islaamka ina isu qabaan dee dadku ilaahayna wuxuu baneeyey in nabad iyo wanaag lagu wada joogo haddii la heshiin waayo in la kala tago maahan dil iyo qasab iyo jeetuu meesha ma yaalo shareecada islaamka in loo noqdo waxa weeyaan dadku markay isguursanayaan ama isku soo dhawaanayaan ama isqasanayaan diinta islaamka ay soo aadaan laakiin markay kala tegayaan ma la ogaado diinna ma yimaadaan masaajidna ma yimaadaan waxaan jeclaan lahaa dadkan muslimiinta oo walaalaheena oo ehlu iimaanka ahi siday markay isku guursanayaanba diinta ugu soo cararaan markay kala tegayaan inay diinta kusoo cararaan si ay maaragtay xaq u helaan ama wanaag u helaan waayo waxa weeyaan marka horeba diintay aadeen in marka labaadna diinta ay ka fogaadaan baa dhibkaa u keenaysa marka waxaan muslimiinta ku guubaabinayaa inay diinta soo aadaan labadii qof oo isqabata inay islaamka usoo noqdaan inay hawshooda xaliyaan inaan si cayaar reerka islaamka lagu dibin waayo sida rasuulka nolosha uu ku faanaya nabigeenu alayhi salaam maalinta aakhiro sida muslimiintu ay u badan tahay dadkiisu u badan yaa lagu faanaya marka reeraha yaa la dibin laakiin waxaan siinaya haddana gabdhuhu ugu badan yihiin oo dibinta gabdhuhu ugu badan yihiin waxa weeyaan waa masayrka waxa la yidhahdo naagta la guurtay gabadha la guursaday gabar taagan ilaahay wuxuu shareecada baneeyena gabdhaha ilaahay gabdhahaas muslimiinta ugu kalsoonaadeen aada ugu kalsoonaadeen kuna iimaankiisa ha soo ceshado gabdhahooda si fiican ha u dhaqan intaasaan ku salaamay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jazaak allah khayran ilaahay ha ku xafido axmed warsame walaalkay ingiriiska meeshaad ka degantahay allah ku barakeeyo aad baan usoo dhaweynaya aragtidaada runtii in la garab joogsado wax kasta oo khayr ah oo ummadda wax u taraya oo maaragtay wax kusoo siyaadinaya waanan filaynaa runtii yani kow baad ka noqotay ilaahay ha ku barakeeyo walaalo badanna in ay ka qayb qaataan horumarinta barnaamijkan iyo barnaamijyo kale oo lamid ah oo runtii bulshada meel kasta ay joogto wax tar ule wax kusoo siyaadinaysa aad baad u mahadsantahay jazaak allahu khayr waan sii wadaynaa biidni illaahi alkariim waan sii wadaynaa haddii alla yidhahdo waa bishaaro waa idinku ballan qaadaynaa inaan sii wadno inta aan nafaska aan hayno haddii uu eebba idmo oon awoodno haddii uu alla yidhaahdo waxaanan rajaynaynaa in ay faafto ay badato ay ballaadhato oo meel kasta ay gaadho oo xataa beritoole cid kale ay sii qaadda idanka ilaahay telefon ayaa soo galay insha allahu tacaala qodobaan noo dhimanoo sheegi doonaa telefoonada waan qabanaynaa wax yar ii kaadiya idinkoo raalli jazaakum allahu khayran waxaan rabaa inaan siiyo macallimad hibo walaalaha qaar waxbay tilmaameen runtii walaalkii ibraahim ahaa frustration buu sheegay oo dabcan walaal axmed warsamana uu ka dambeeyey midoo de meesha laysma dilo yidhi sideedaba isdilku khalad buu ku imanaya iyo isfahan la-aan iyo jahli marka walaal ibraahim frustrationkaasi dee waa xanaaq dadki way xanaaqayaan oo isdilayaan oo dee ninkii gabadhiiba ku kacaya frustrationka dawooyin baa loo hayaa oo dawadu walaal axmed baa dhinac ka sheegay oo yidhi islaamkii in lagu noqday u baahan tahay diintu waa naxariis waa qof kastaba xaqiisii in la siiyo facdi kulladii xaqin xaq maxaad is leedahay hibo waa qaybtii uu dambeysay oo burburkii qayb ka mida wuu sheegay ibraahimo dee burburkay ka mid tahay waxaan keenay in dad isku dilaan yacna qodobadii burburin lahaa qoyskan inaan la wadaagno inta aanan u gelin malaha qodob kalaad rabtaa inaad ku darsato maya wallahi dadkii baan horta mahad celinayaa ilaahay jazaaga siiyo baaraka allah fiikum iyagoo waqtigan soo jeeda oo na daawanaya way ku mahadsan yihiin runtii waxyaalaha keensanaya burburka labada qof waxa weeyaan laba qaybood baan u kala qaadaynaa oo u kala dhigaynaa qaybi waa qayb kaaga imanaysa mujtamacii iyo banaankii iyo qofkii kula noolaa aanan ahayn
qaybna waa qayb kaaga imanaysa qofkii kula noolaa نعم qofkii aad guursatayba zawjkaaga amba zawjadaada ahayd buu kaaga imanaya marka waxa ugu daran oo ugu dhib badan oo ugu culus waa qofka kula nool dhibta kaaga imanaysa نعم dhibta banaanka kaaga imanaysa inuu baad iska daafici kartaa laakiin haddii aaba dhibtana ay ku daciifsatay ta banaankuna way ku sii dili uun نعم marka waxaa la rabaa in labada qof ay iyagu isbartaan casharadeena waxaa ka mid ah in online-ka ku bixino maaragtay guurka iyo jimaaca iyo intimisiga iyo labada qof raaxada ka dhaxaysa siday u gudan lahaayeen ee ugu wanaagsan waxaa ka mid ah wada hadalka qof walba uu garanaya sida loo hadlo laakiinse ma awoodaa qofka kale ma isfahansiin kartaa fariintaada ma gaadhsiin kartaa taasaa u baahan cilmi dheeraad ah dareenkaaga ma cabiri kartaa dareenkaaga ma cabiri kartaa warkaaga ma caddayn kartaa adigu doorkaaga qof ma dhagaysan kartaa inaan qofku markuu hadlayo adiga kii dhagaysanaya ah ma garatay markuu isagu hadlayo adigu hadlaysina isagaa ku dhagaysanaya ma noqon kartaa kii wax dhagaystay maxay ahayd waxa casharadeena ka mid ah in jacaylku muxuu yahay guurku muxuu yahay in faamiligu qaybtuu ku leeyahay oo aabihii iyo adeerkii iyo sodogii iyo sodohdii maxay ku leeyihiin guurka ya xididkii yani waxaasoo dhan baa ka mid ah akhiyow marka caradii baa ka mid ah oo sidii loo maarayn lahaa ayaa ka mid ah meeshan dilme iyo cay iyo aflagaad iyo maba taalo qofkan waa qofkeed xolatay ha ilaawin marka ugu horeysa marka dhibaatooyinka haddii aan caawa soo koobo oon laba qodob aba saddex keliya ka soo qaato dhibta qofka kaaga imanaysa waxaa ka mid ah in uu qofkii kalsooni uu ku siin waayo uu kugu kalsoonaan waayo waa sax inuu cadhadiisii xakameyn waayo ma aragta uu cadhadiisii markuu cadhoodo uu xadka baxa ma garanayso ha loo maamuli lahay waxaan loo maarayn lahaa ma garanayo waxaa ka mid ah ixtiraam darri waxaa ka mid ah in maaragta inuu naftiisa un qofku ku maqnaado anaa wax raba anigaa wax raba ma odhanayo anigaa wax raba laakiin wuu dhaqmayaa ma garatay xisaabta qofkii kale kuma darsanayo marka waxaasoo dhan ayaa la rabaa waxaa la rabaa inuu barnaamijkan sii daa'imo intii tabarteena iyo awoodeena waan imaan doonaa telefishinka waana ka hadli doonaa waana rabnaa maaragta caawimaadiina iyo supportkiina iyo gargaarkiina iyo ducadiinaba waan rabnaa walaalkii ugu dambeeyey soo hadlay ilaahay khayr iyo jazaa siiyo waa run oo meeshaas cidlada inaan nicam marnaan rabnaa buu yidhi waa run oo waa wax wanaagsan soo dhawow baan ku leenahay walaalo waanaad ku mahadsan tahay insha allah waxaana la baran doonaa akhi jawhar maraaxisha uu guurku maro ya kolka hore jacayl baa laysku guursaday berrina maxay noqon doontaa nolol kalaa la gali doonaa saakuuna maxay iman doontaa ina madaxa laysku dhiftaa imaan doonta kadib sidee looga bixi lamaba ogaba maraaxil in la marayo inay sheekadani maaragtay ay ku jirayso uun macaankaasaa la moodaya laakiin dadka inaan barno oon u sheegno wixii tabarteenna ah in ay noloshu maraaxil ay mari doonto guurkuna uu yahay waddo dheer oo laysla marayo marka waddadaas labada qof inay gacmaha isqabsadaan ay isa saacidaan ay garab isku noqdaan ayaan rabnaa insha allah wajazaakum allah khayr ilaahay ku barakeeyo jazaak illahu khayran macalimed hiba cumar runtii waxaan soo gaadhnay barnaamijka gabagabadiisii waxaan caawa dhan u fadhinay oo aan ka hadlaynay waa barnaamijkii horumarinta qoyska ay idiin soo diyaarisay idiin soo gudbinaysay hay-adda la yidhaahdo Happy Marriage Academy oo uu idiin fudeydiyey runtii in uu hawada idiin soo geliyo barnaamijka horumarinta qoyska TV-gan caalamiga ee aan fadhino caawa ee aada wada taqaanaan ee quruxda badan ee caalamka iyo ummadda u khidmaynaya Somali Cable ilaahay waxaan ka baryaa subxaana wa tacaala in uu maamulkooda walaalkay Sheekh Mustafa uu hormood ka yahay iyo walaalaha runtii gadaal fadhiya ee ka shaqeynaya sawirkan quruxda badan leh iyo warkan inaad caalamka kala socotaan inuu iyagana ilaahay xafido ma koobi karo magacaantoodu waa dhowr waa rag tira badan ha u malaynin labada qof ee halkan fadhida uun in ay yihiin kuwa waxaan idiin sameeyey waxaa jira walaalo badan oo habeen raar idiin taagan oo halkaa gadaal fadhiya runtii iyagana waxaan leeyahay dhammaantood haddii uu Bashiir yahay haddii uu Maxamed yahay haddii uu Saciid yahay intaba idiin soo gudbinaya barnaamijkaas hadduu Cali yahay inuu ilaahay barakeeyo subxaana wa tacaala xifdiyo barnaamijkeena caawa dhowr qodob baan uga hadalay runtii oo aanan welina dhaadhicin muqadimu ahaa ama hordhac buu ahaa maadaama caawa bilow ahaa guurka ayaan isyara dul taagnay waan yara taataabanay runtii
ma aana dhaadhicin insha allah waan dhaadhici doonaa hadduu alla yidhaahdo. waxaan rajaynayaa jumcayaal badan in aad naga fiirsan doontaan halkan. waxaan idiin sheegayaa siday walaasha idiin sheegtay, online baan ku bixinaa duruus. ciddii u baahan in ay nala soo xidhiidho insha allahu tacaala waxaad nagala soo xidhiidhi kartiin bogga internetka facebooka aan ku leenahay oo Happy Marriage Academy. waad nagala soo xidhiidhi kartiin. kayga aan gaarka u leeyahay Axmed Jawhari, ka ay gaarka u leedahay Hiba Cumar, intaba waad nagala soo xidhiidhi kartiin. sida oo kale waxaad nagala soo xidhiidhaysiin haddii alla yidhaahdo emailada hoos idinku soo qormi doona haddii uu alla yidhaahdo. waxaan idiin sheegayaa walaalayaal, bisha soo socota in aan u qaban doono dufcadii u horeysay ee ka qalan jabisay maxaan ku dhahday barnaamijka Happy Marriage Academy. sidee loo heli karaa qoys qurux badan, qoys wanaagsan, qoys fiican? xataa mararka qaarkood waxaan aada uga walwalaa dadka kala tegay waxay moodaan in caalamka guur kaliba uuna soo marayn. maya, marka ay qaateen ay dhegaysteen weliba runtii 2 qodob oo cajiib ah waa la idinla wadaagi doonaaye walaaluhu waxay tilmaameen in lagu daro weliba 3 qodob aan idhaahdo, inkastoo qodobada oo dhan casharadan qaadanayna aada u qiimo badnaayeen. arrinta jacaylka la yidhaahdo, xariifiin baan nahay, waa naqaanaa sida loo sheego, laakiin sida loo dabaqo ma naqaano. way nagu yartahay. walaaluhu waxay soo gudbiyeen talo ah in ay yidhaahdeen waxay u baahan tahay arrintani in yaraan dadka lagu baro sidii loo dabiqi lahaa. waxaa kale oo ka mid ah yacna runtii chemistryga loofka uu leeyahay in aan baranno ayay u baahan tahay. waxaa ka mid ah arrinta maxaan ku dhahday sariirta. guurku qayb ugu weyn ayay ka mid tahay in la fahmo sariirta qolka hurdada see loogu noolaada waa fandhan. marka runtii waxaan idinku soo dhaweyneynaa in aad hadduu alla yidhaahdo aad nala soo xidhiidhaan, tv-ga aad nagala soo xidhiidhaan, meelaha aan idiin tilmaamay nagala soo xidhiidhaan. xafladda bisha dambe bilowgeeda ka dhici doonta London ee aan ku siin doono shahaadooyinkii qalanjabintana, waxaan aada u rajeynayaa intan London iyo nawaaxideeda degan ama UK degan inay nagala soo qayb qaataan oo ay soo arkaan. waxaan u mahad celinayaa mahad aan la soo koobi karin oo aan dabcan cabiri karinba Allah subxaanahu wa tacaala ina abuuray ee inoo suurtageliyey fursadan ayaan u mahad celinayaa subxaanahu wa tacaala inuu inagu ilhaamiyo ama dhexdeenna inaga soo saaro dad ku hamiya ummadda hamigeeda qaada. nebiguna wuu ammaanay dadka sala allahu calayhi wasalam inuu ilaahay inaga dhigo. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadleh. mahadda labaad waxaan usoo celinayaa runtii walaashay Hiba Cumar oo aan aada u jecelahay, oo runtii haddaynan iyadu jiri lahayn barnaamijkani uunan idin soo gaari lahayn. xaqiiqatan waa la arkaa qof keligii socda, laakiin 2 qof oo isla socoto oo wax isla wada waa jiraan, laakiin waa yar yihiin. waxaan aada u rajeynayaa inay bataan haddii alla yidhaahdo. haddaynan iyadu jiri lahayn waxaan mar kale ku celinayaa idiima soo gaadheen. ugu dambeyntii mahadda u dambaysa waxaa iskale tv-ga caalamigee hadduunan idiin soo gudbin lahayn Somali Cable annagana aydaanna maqli lahayn intiina badan caalamka. marka iga raali noqda. mahadda saddexaad qof kasta oo gurigiisa fadhiyo oo na daawaday oo noo sabray oo na dhageystay ayaa iskale. aad baad u mahadsan tahay. jazaakillahu khayran Hiba Cumar, ilaahay ku xafido. waxaan halkan ka salaamayaa intana taqaana, inta noo sabirtay, intana garab gashay, inta xataa kritiiga noo soo dirtay ee na jecel in ayna toosiyaan. aad baan idin jecelahay. kritiigu ceeb ma aha, taa meel ha lagu qorto insha allahu tacaala. labadayda gabdhoodna aad baan u salaamayaa, Raxmi iyo Nasra oo toosiya alaabtan quruxdeeda insha allah. jazaakum allahu khayran. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.